الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينه ku-xigeenka madaxda kale bahda saxaafadda mudanayaal iyo marwooyinba waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh reer Soomaaliland inta shaashada naga daawanayna waan salaamaya assalaamu calaykum aan jeclaan inaan warbixin yar oo kooban inaan bixiyo hadalkii intii mucda lahayd madaxweyne ku-xigeenka yiri sida madaxweyne ku-xigeenku uu sheegay halkan waxaan ka baxnay arbacadii anagoo wafdi ballaadhana oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku ujeedada socdaalkaasi waxay ahayd laba sida madaxweyne ku-xigeenku uu sheegay mid waxay la xiriirday abaaraha midna waxay la xiriirday heshiis ku saabsan isticmaalka madaarka berbera ee dawladda Imaaraadka labadaba alxamdulillah waa ku soo guuleysanay waxaan la kulanay inta halka aanu joognay madax badan madaxda dawladda iyo madaxda hay'adaha khayriga ah oo la kulanay aad bay noo soo dhaweeyeen waxaan jecelahay fursadan ka faa'iideysto halkan uga mahad celiyo sidii wanaagsanayd ee diiranayd ee noo soo dhaweeyeen waxa la inoogu ballan qaaday xagga abaaro runtii arrinka noogu kulul lahaa in la inoogu deeqo lacag ilaa $2 milyan insha Allah waxaan rajeynaynaa in lacagta raashin lagu soo iibiyo amba halkan laga iibiyo amba xagga laga soo iibiyo marka waa khayr inoo soo kordhay oo runtii farxad leh weey arrinka ku saabsan saldhigga amba isticmaalka military ee madaarka berbera waxaanu ka wada galay wada hadalkaas wuxuu ku saleysnaa go'aamadii ka soo baxay baarlamaanka ayuu ku saleysnaa waxaanu ku heshiinay inay isticmaali karaan madaarka berbera muddo 25 sanadooda innakana inay naga caawin doonaan mashaariic fara badan oo la xidhiidha kaabayaal oo ugu horeeyo jidka isku xidhaaya berbera iyo wajaale jidka berbera iyo wajaale isku xidhaaya muddo badan baa laga hadlayay malaayimka muddo 15 sanadooda waa laga hadlayay laakiin ma hirgelin laakiin heshiiska way ku jirtaa in ay dhisaan jidkaas waxa ku jira inay madaar cusub oo madani ah oo diyaaradaha xamuulka iyo rakaabkuba ay ka duuli karaan inay noo sameeyaan waxa kale oo ay naga caawin doonaan insha Allah xagga amniga oo ay siin doonaan tababar oo ay noo siin doonaan ciidamadeena booliiska iyo ciidamadeena baddaba waxa kale oo ku jira mashaariic la xiriidha kaabayaasha adeega dadweynaha sida tamarta biyaha caafimaadka waxbarashada inta mashaariicaas socoto heshiiska waxa ka mid ah in la siiyo mudnaanta koobaad shirkadaha wadaniga iyo shaqaalaha wadaniga reer Soomaaliland waxa kale oo ku jira heshiiska in dawladda Imaaraadku u furto dhalinyaradeenna suuqa shaqada sida gidigan baynu wadognahay maanta mashaakilka ugu waaweyn ee hor taagan dadkeena waa shaqo la'aan baa ka mid ah runtii anbaba ka koowa marka in suuqa laftigiisa inoo furaan si ay ugu furaan wadamada kaleba heshiiskaas waxaanu qabnaa heshiis aad iyo aad u qiimo badan si madaxweynuhu sheegay waxa ku jira fawaaid badan mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid nabadgelyaba intaba runtii way ku jirtaa innakoo kaliya inooguma jirto waxay ugu jirtaa gobolka oo dhan bay ugu jirtaa cid aniga heshiiskaas uu ku yahay hantaaqo amba uu mataqaanaa uu hadidaad uu ku yahay uu keenaya runtii ma jirto waa mashruuc nabadeed iyo harumar cid walba nabad iyo harumar way doonaysaa inana intaas ma rajayna runtii inaan kana helo waxa runtii si madaxweynuhu ugu baaqay dadka reer Soomaaliland inay mashruuca soo dhaweeyaan oo taageeraan mararka qaarkood waxa la yiraahdaa
in timeka aad sheegteen ma dee berigii horaa sheegteen markii dekedda ayaa sheegteen maxaa soo kordhay marka faraqa u dhexeeya waxa weeye markii hore wuxuun baa jiray un carab laalaadin heshiis muu ahayn kanu waa heshiis waxaynu ku heshiinay inay mashaariicdaa mataqaanaa ay noo dhaqangeliyaan weliba muddo 3 sannadood inay ku dhaqangeliyaan ayaanu ku soo heshiinay markaa runtii waa arrin weyn oo inoo soo kordhay waynu u baahannahay oo inaynuna baahnayn una baahanay inaynu wada taageero aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hortaan ka jawaaba taada hore waxaad uga raalliyahay horta shirkanu shirkii ugu horreeyey maaha waa shirkii afraad weeye kii ugu horreeye wuxuu ka dhacay infad waa kii shanaad weeye kii ugu horreye waa kii ka dhacay ingiriiska dabeedna brussels dabeedna copenhagen dabeedna istanbul kana waa kii shanaad weeye shirarka hore oo dhan marka laga reebo kii ugu horreeyey ingiriiska waxa qabanqaabadiisa lahaa dawladda Soomaaliya iyo marba cidda martida loo yahay iyo jimciyadda qurmaa ka dhaxaysa maadaama inaku aynaan kaalin hormuud aynaan ka qaadan intaasoo shiro horeba kamaynaan qayb gelin kana haddaan wax iska bedelin qorshihiisa iyo qabanqaabadiisa halkii baynu ka taagannahay inaku Soomaaliya manihin inaku Somaliland baynu Soomaaliya wadanu jaarnahay weeye wixii aynu dasi wada jira oo heer caalami uga wada agaasinana waynu ka qayb galaynaa wixii laakiin aynu ku noqonayno marti oo laga yaabo mataqaan in loo qaato inaynu ka mid nahay federaalka taa ma qaadanayno horta maan odhan wixii golaha la keenay carab laalaadinbe ma taa maan odhan tan waxaa tii markii tii Dubai World Ports dekedda baa laakiin wixii golaha la geeyey ee golahu ansixiyey waxay ahayd shuruudaha aynu ku xidhayno heshiiska annagoo raacayna go'aankii markaa baarlamanka waan waxba laga bedelaynin baanu heshiis la soo gallay dawladda imaaraadka markaa qodobadii waxba iskama bedelin haddii qodobadii wax iska bedelaan markaa waa in lagu soo noqdo baarlamanka haddii si aan waxba iska bedelin dee looma baahna in lagu soo noqdo horta dee waa laga yaabaa inuu muuqaalkun kaa maqan wax la qarinayaa ma jiraano waana halkan taaganba eeleba intaynu halkaa joognay runtii madax badan baanu la kulannay si runtii sharaf iyo qiimo leh baa naloo soo dhoweeyey hadday tahay qoyska boqortooyada hadday tahay wasiirada hadday tahay madaxda hay'adaha giddi waanu la wada kulannay runtii oo runtii ka turjumaysa yacniga ahmiyadda iyo maqaamka iyo mansabka inuu kadaynu Soomaaliya aynu nahay aynu ku leenahay imaaraadka marka runtii horta wax la qariyay ma jiro waa wax cad weeye heshiis baynu gallay kaas waxa weeye markhaati ma doonto waana la buuxo waa la wada joogay
الشعب كستو وحليلو وكحنا أهلكي أيدت كاسك جيرودين وكتعزيدين ريديهن رير سومالان مركوجه الرئيسة يهديهن ضد كلابه مرور بنا رنتي وحن شعر الله إن هالجن يعني سكوريمات كاتشرا إن عن شعبك أنا وحكسوا قارين ها وحن ولا نسافر بين كلنا اليمن إما كده حال دتاجن ودد هالكنوي شوجا ها وحنو فري أرن كاين متقنا بارتان لغو سمايو وانا لقى حول قلي مقعد أنا هدن كيرت شوابه ملا أنا وغير فردودوبان مدح ها ورت مشروع SDF لما هكين ومشاريع فربضن ويا مشاريع دي فرح بدن ويس السعودان ملا waxaa jira hal mashruuc oo kaliya oo isagana lama joojinin laakiin dib loo riixay ayaa jira wax qarsoon maaha in saaxiibadeena reer galbeedku ay wax badan inagula taliyeen inagana caawin jireen doorashooyinka wax qarsoon maaha in dib u dhac ay nagu yimi xagga doorashooyinka aanay ku ahayn aanay ku qanacsanayn taas wax runtii wax qarsoodiye maaha duruufaha inaba kuma qanacsanin إن الدب نوقع عن دورشين كم قنعسني إن نورنتي إلى إنه حلقة دورشة آد بمهم أطاي إما كديت واحد لقبتين مع المال لقبتي إن شاء الله دورشين كم دحوينها يكون كلام واحد آد مهمة إن شعبية الدولة بلغة وضع الشقية سيدي لو حقيقين لها الدورشة يودي على هاي المال هاي نقبسنه مركا وحرنتي مشروع لوجو شيء مسوق ماسو رنتي مشروع Thank you.